taariikhda shirkadda Gucci. Dilaagii badbaadiyay shirkadda Gucci waa mid ka mid ah shirkadaha baraanka ee ugu caansan dunida marka laga hadlayo suuqa dharka, saacadaha, boorsooyinka gacanta iyo wixii la mid ah. waana shirkad jirta taariikh ka badan 100 sano. badeecadaha ay soo saarto shirkadda Gucci waa kuwa leh tayo sare iyo qiimo aysan goyn karin cid walba. bilowga iyo bartamaha qarnigii hore waxaa ku xaroogan jiray alaabada ay soo saarto shirkadda Gucci xaasaska, madaxda iyo dumarka caanka ah oo kaliya. maanta dunidu si weyn ayay isu bedeshay. wadan walba iyo magaalo walbana waxa laga helayaa alaab ay soo saarto shirkadani. aasaaska shirkadda waxa bilaabay nin ahaan jiray waiter ama mudalab, ugana gudbay nadiifinta suxuunta iyo weelka cuntada. haddaba sidee ay u suurto gashay ninkan inuu sameeyo shirkad caalami ah oo faracyo kula inta badan wadamada adduunka? maxaa keenay in marar badan ay shirkaddu ku sigato in albaabada loo xidho? muxuu sameeyey Gucciano si uu badbaadiyo shirkadda? kuma ahaa dilaagii ka qayb qaatay badbaadinta shirkadda? jawaabaha su'aalahan iyo kuwa badan oo kale waxaad ku daawan doontaa muuqaalkeena maanta. daawade inta aynan bilaabin hubi inaad riixday subscribe-ta, taabo like-ta si muuqaalku u gaadho dad badan. wixii fikir ee ku saabsan mawduucyada channelka, dhiirigelin ama faallo kaleba nagu reeb qaybta hoose ee commentiga. aynu soo laabanno mawduuceena. Gucci waxa uu ku dhashay magaalada Florence ee Italy. taariikhdu markay ahayd 26 bishii 3 1881. aabihii iyo hooyadii waxay ahaayeen dad danyar ah oo ku noolka ganacsiga koofiyado ay ka sameeyeen geedka loo yaqaano qabada. waxa ay ku rajo weynaayeen in Gucci uu la wareegi doono shaqada marka uu weynaado. laakiin markii uu gaaray da'da 17 sano, ganacsiga yara ee qoysku uu xidhmay, waxayna go'aan ku gaareen inay iibiyaan gurigooda si ay u safraan magaalada London, halkaasna ay uga bilowdaan nolol cusub. markaba ayayna ka raaceen xeebta magaalada Florence, waxayna si nabad ah ku gaareen magaalada London, halkaas oo wiilkooda Gucci uu shaqo ka helay mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada. wuxuu isku maray shaqooyinka ay ka midka yihiin nadiifinta weelka, dhigdhigidda cuntada, soo dhaweynta macaamiisha degaysa hoteelka. ugu dambaynna waxaa loo tababaray elevator-ka ama wiishka oo markaas ahaa tiknoolajiyad ku cusub dunida oo dhan. wuxuu ka caawin jiray dalxiisayaasha iyo dadka madaxda ah ee soo dega hoteelka inuu baro habka loo isticmaalo elevator-ka, maadaama hoteelkani ka mid ahaa hoteeladii ugu horreysay ee soo kordhiyey liftarka. arrintani waxay fursad u siisay inuu dhex galo dabaqadda hantiilayaasha ee bulshada, uuna wax badan ka barto habfikirkooda, labiskooda, cuntadooda iyo guud ahaanba noloshooda. wuxuu arkay in dadkani inta badan ay la safraan alaabo culculus, sidoo kale aysan ka maarmin boorsooyinka gacanta. ugu dambayn wuxuu dareemay inay danayaan quality-ga alaabta ee aysan ka fikirin qiimaha iyo lacagta la siinayo. dhowr sano oo hoteelkan ka shaqaynayay Guccio wuxuu go'aansaday inuu ku laabto dalkiisii hooyo. 1901 ayuu gaaray magaaladii uu ku dhashay ee Florence. wuxuu bilaabay nolol cusub isaga oo guursaday haweeney ka shaqaysa tulista dharka oo lagu magacaabo Ida Colfel. markii uu bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka 1917, dowladda Talyaanigu waxay askaraysay in badan oo ka mid ah dadkeeda. Gucciana waxa uu furmaha dagaalka ku maqnaa dhowr sano. nasiibkiisa kama mid noqon malaayiintii ku nafooday dagaalkii koowaad. markii uu soo noqday wuxuu la kulmay dalkii oo burbur badani ka muuqdo iyo dhaqaalihii oo dhulka galay. wuxuuna shaqo ka helay shirkad soo saartay boorsooyinka qaaliga ah ee ka samaysan maaska. halkan ayuu Gucci ka bartay xirfadda samaynta boorsooyinka tayada badan. wuxuu go'aansaday inuu magaalada Roma ka furto dukaan yar uu gaar u leeyahay, laakiin xaaskiisa Ida ayaa fikraddan si weyn uga hortimid. Gucci kama tanaasulin fikirkiisa, wuxuuna bilaabay dhammaadka isbuuc kasta inuu safro magaalada Roma isagoo naawilaya inuu mar uun xaqiijiyo riyadiisa. markii la soo gaaray sanadkii 1921, maalin xada ayuu Gucci xaaskiisa u dalxiisgeeyay mid ka mid ah suuqyada qadiimiga ee magaalada Florence, halkaas oo ay ku arkeen dukaanka ganacsada iibinta boorsooyinka gacanta oo hortiisa lagu qoray waa iib. Ida waxay u sheegtay odaygeeda inay haystaan fursad noloshooda aan mar labaad soo mari doonin. in ay qaraabo ahaayeen ayuu ka daynsaday xoogaa lacag ah, sidaas ayuuna kula wareegay dukaankii uu magaciisa u bixiyey Gucci. inkasta oo markii dambe uu ku gaabsaday Gucci bilowga ganacsigiisa, alaabta uu ku ganacsado waxa uu ka keeni jiray dalka dibaddiisa, gaar ahaan Toscana, Germany iyo England. laakiin Gucci si uu horumar u gaarsiiyey ganacsigiisa wuxuu bilaabay inuu furto warshad uu isagu ku sameeyo alaabta uu gado. xirfaddii uu ka helay shaqadiisii hore ee samaynta boorsooyinka iyo aqoonta uu leeyahay dooqa dadka dabaqadda sare iyo dalxiisayaasha ayaa ka caawiyey inuu muddo yar ku soo shaabaxo. inkasta oo shirkaddu haysay waddada guusha, haddana Gucci ma qanacsanayn mar walba. wuxuu ahaan jiray nin baxsan oo fikira. xilliyada qaarkood goobta shaqada dhexdeeda ayuu ku ooyi jiray. nin ka mid ah shaqaalihiisa ayaa sheegay
in murugada ka muuqata wejiga mudanihiisa la moodo inuu yahay maxbuus lagu xukumay dil toogasho. Gujiyo waxay haysatay dhibaato ka dhalatay kala badnaanta baahida suuqa iyo awoodda wax soo saarka shirkadda. Ma uusan haysan lacag meel u taalla oo uu ku kordhiyo tirada shaqaalaha, faracyada shirkadda ama alaabta ceedhin ee lagu sameeyo boorsooyinka. Inuusan qaadin wax tallaaba waxay ka dhigan tahay shirkadda oo halkeeda taagan, isla markaana aan samaynayn kobac dhaqaale iyo horumar midnaba. iyada oo xaalku ku xun yahay ayay xaaskiisu kula talisay inuu deyn ka qaato mid ka mid ah bangiyada ay xiriirka leeyihiin ama asxaabta ay isku dhow yihiin. intii aynu sheekadan wadnay, tani waxay noqonaysaa taladii labaad ee xaaska Gujiyo siisa saygeeda. run ahaantii labada talaba si weyn ayay u anfaceen. wuxuu lacag fiican ka daynsaday nin ay mar asxaab ahaayeen marna xidid ahaayeen. lacagtaas markii uu helay Gujiyo wuxuu iska bixiyey deymo yaryar oo lagu lahaa, wuxuuna qaatay shaqaale xirfad sare leh. shirkadiisuna waxay bilowday wax soo saar xawli ah. mid walba oo ka mid ah shaqaalaha wuxuu mas'uul ka ahaa inuu sameeyo hal product. bilow ilaa dhammaadna shaqada isaga ayaa qabanayay. waxyaabaha ay sameeyeen qaarkood waxay u baahnaayeen in la isku daro in ka badan 100 gabal si loo sameeyo hal shay. waxay shaqaynayeen 10 saacadood maalin walba si ay u xaqiijiyaan hadafka shirkadda. markii la gaaray sanadkii 1925 waxa isbedel ku yimid xukuumadda Talyaaniga, iyada oo dawladda cusubi ay xanibaado ku soo rogtay alaabada laga soo dejiyo dalka dibadiisa. arrintani waxay caqabad weyn ku ahayd ganacsiga Gujiyo oo si weyn ugu tiirsanaa qaar ka mid ah alaabada uu kala soo dego dalalka dibadda. siyaasaddan cusubi waxay khatar gelisay shirkadda Gujiyo oo cagta saartay wadada khasaaraha. shirkaddu waxay ku dhawaatay in albaabada loo xidho, laakiin Gujiyo ma ahayn nin si sahlan isu dhiibaya. wuxuuna bilaabay inuu la falgalo xaaladda cusub. wuxuuna qaaday 2 tallaabo oo shirkaddan ka badbaadisay khasaare la hubo. tan koowaad waxay ahayd inuu raadsado shaqaalayaal ama xirfadlayaal awood u leh inay sameeyaan alaabta uu Gujiyo ka keensan jiray dalalka dibadda. tan labaadna waa inuu ballaariyay wax soo saarka shirkadda, uuna bilaabay samaynta noocyo cusub oo boorsooyinka gacanta ah. wuxuu ku daray boorsooyinka jeebka, kaba iyo xataa suumanka lagu xidhay surwaalada. dhammaan alaabtaas waxa uu ka sameeyay maas ama plastic aanu dibadda ka keenin, waxaana soo saarayay xirfadlayaal waddanka u dhashay. labadaas tallaabo ay u qaaday Gujiyo waxay suurtageliyeen in shirkaddu ka soo kabato khasaarihii soo gaadhay, ayna mar labaad samayso horumar ka badan tii hore ay u gaadhay. u fiirso daawade go'aanka dawladda Talyaaniga ay xanibaada ku saartay badeecadaha ka timaada wadamada shisheeye, sida uu fursad u siiyay xirfadlayaasha waddanka u dhashay ee ay shirkadahoodu dibadda ka keensanayeen alaab dalkooda lagu samayn karo. mar labaad u fiirso horumarka ay samaysay shirkadda Guji marka ay mudnaanta siisay badeecadaha lagu sameeyo waddanka. isweydii, waddankeena maxaa keenay inaynu wasna xirfadlayaasheena awood u leh samaynta alaabo la mid ah ama ka tayo fiican midda aynu ka keensanno wadamada dibadda? ma la arki doonaa ardayda Soomaaliyeed oo u shaqo taga warshado waddani ah oo alaabtooda loo dhoofiyo daafaha dunida? mise waxaynu ahaan doonaa bulsho ka faanta shaqada, takoorta muruqmaalka oo qofkeeda ku dhaleecaysa xirfadda uu bulshada ugu adeego? ilaa goorma ayay erayada tumaal, fuundi, beeraley, jaaji, xamaali, kuuli, wastaad ay ku sii jiri doonaan qaybta aflagaadada ee qaamuuska Soomaalida? waxayna la gudboon inaan tala ahaan u qaadanno dardaaranka ay xambaarsan tahay tixdan gaaban waan mar hore ka aqriyay baraha bulshada. kabteena ninkii tolayay, birteena noo tumayay, taageeru naga mudanye, maxaa dalka loogu hiifay, maxaa tacbay wadaane, walaalaha loo takooray. haddaba aan u soo laabanno sheekadeenna. Gujiyo shirkadda waxa uu ku soo daray wiilashiisa si ay uga caawiyaan ballaarinta iyo horumarinta shirkadda. wuxuuna siiyey tababaro si ay ula wareegaan shaqada marka uu weynaado. waxaa jira wiil lagu magacaabo Aldo oo u fikiray si ka duwan aabihiis. safarro ayuu u kala bixi jiray dhammaan dawladaha qaaradda Yurub. sanadkii 1935 wuxuu soo arkay in ay jiraan macaamiil badan oo jecel alaabada ay soo saarto shirkadda Guji. Aldo wuxuu ku fikiray sidii shirkadda looga dhigi lahaa mid caalami ah oo faracyo iyo baraanjisyo kala duwan ay uga furan lahayd dalalka dibadda. aabihiis ayuu la wadaagay fikraddiisa, wala uu si fiican ugu sharaxay. haddana waxa uu la kulmay diidmo qayaxan oo qalbijab ku riday. Gujiyo wuxuu sabab uga dhigay diidmadiisa xaaladda dhaqaale ee shirkadda waan u saamaxayn isballaarin aan si weyn looga fiirsan. wuxuuna aaminsanaa arrintan inay horseedi doonto khasaare aan laga soo kaban karin. xarunta weyn ee shirkadda sida aan soo sheegnay waxay ku taallaa magaalada Florence. Aldo wuxuu sameeyey farcii koowaad ee shirkaddoodu ay ku yeelato magaalada Roma. waqtiga ayaana caddeeyey in Aldo uu ka saxnaa aabihiis, sababtoo ah faraca magaalada Roma ayaa noqday midkii badbaadiyay ganacsiga qoyska. xilli Yurub ay la daalaadhacaysay dagaal weynihii labaad, cidda ugu badan ee faraca magaalada Roma wax ka iibsata waxay ahayd ciidamadii ka soo noqday dagaalada oo hadiyado u qaadi jiray hooyooyinkood, xaasaskooda iyo walaalahood oo ay muddo dheer dagaalla kaga maqnaayeen.
ma ahayn ciidamada Talyaaniga oo kaliya ee ciidanka xulafada ayaa ka mid ahaa macaamiisha faraca Roma. sidaasna wax soo saarka shirkadda Gucci wuxuu ku dhaafay xuduudda dalka Italy. mar kale ayuu Gucci deyma ka raadsaday bangiyada si uu uga jawaabo dalabka faraha badan ee dadka ku qulqulaya xarumaha shirkadda. waxaa si weyn u caawiyay shaqaalaha shirkadda oo marka noqday kuwa leh khibrad badan, waxayna soo saareen alaabo suuqa ku cusub oo soo jiitay indhaha bulshada. Gucci wuxuu ku qancay siyaasadda wiilkiisa ee ahayd ballaarinta ganacsiga, wuxuuna bilaabay inuu furo qaybtii saddexaad oo laga hirgelinayo magaalada Milano. markan shirkaddu waxay marisay 3 farac oo uga furan magaalooyinka Florence, Roma iyo Milano. isla waqtigaas waxaa safar ugu baxay magaalada New York wiilasha u dhalay Gucci, Aldo, Rodolfo iyo Vasco. safarkan ujeedadiisa dhabta ah looma sheegin Gucci, laakiin 3 wiil waxay rabeen inay caasimadda Mareykanka ka hirgeliyaan xaruntii ugu horeysay ee shirkaddu ku yeelato meel ka baxsan waddanka Talyaaniga. xoogaa baaritaan ah iyo warwareeg kadib waxay heleen dukaan ku yaala meel wanaagsan, waxayna gorgortan la galeen mulkiilihii oo ugu dambayn ka aqbalay inuu ku wareejiyo ayna iska bixiyaan $6,000 oo waqtigaas ahayd lacag badan. ugu dambayn Gucci waxaa loo sheegay qorshaha socda iyo meesha ay wax marayaan. si weyn ayuuna uga cadhooday wiilashiisa, wuxuuna amray inay si dhaqsa uga soo noqdaan Mareykanka. Gucci oo markii labaad uu diidayo in shirkadiisa qaybo ka mid ah loo raro meel ka baxsan Italy, laakiin Aldo markan ma ahan kaligiis. waxay ku guuleysteen inay qanciyaan aabahood. 1 sano kadib safarkooda ayaa la furay xarunta shirkadda Gucci ee New York. sumcadda iyo qiimaha baraanka Gucci ayaa cirka galay, waxayna shacbiyad ku yeelatay golayaasha madaxda hantiilayaasha iyo dadka caanka ah. waxaa ugu caansanaa macaamiisha shirkadda waqtigaas boqoradda Ingiriiska Elizabeth iyo amiiradda Monaco, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor iyo Catherine Hepburn. New Yorkna waxay dhagax dhig u noqotay duulaankii shirkadda Gucci ay ku qaaday dhammaan dalalka ka jira adduunka. qoyska Gucci wuxuu galay xilligiisii dahabiga ahaa, shirkaddooduna waxay ku tallaabsatay horumar ay badan sugayeen. wixii wanaagsanimo waaraane tahafurka xarunta New York 2 toddobaad kadib qoyska Gucci waxaa la soo diristay geerin naxdin leh. Gucci ayaa u geeriyooday xanuun lama filaan ah oo wadnaha ka haleelay. xaaladiisa caafimaad waxay ahayd mid degan, wuxuuna isu diyaarinayay ballan uu la lahaa qaar ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn dalka Talyaaniga. aaskiisa kadib waxaa la furay dardaaran uu ka tegay Mr. Gucci, waxaana ku qornay in wiilashiisa 3 ay si siman u leeyihiin shirkadda, lagana rabo inay si wada jir u maamulaan. ugu dambayntii midnimo iyo isku duubni ayuu kula dardaarmay. wiilasha uu ka tegay Gucci waxay qabsadeen shaqada shirkadda. Aldo waxaa loo doortay inuu mas'uul ka noqdo qaybta Mareykanka. Rodolfo waxa uu gacanta ku hayay qaybta ku taalla magaalada Milano, halka Vasco loo dhiibay xarunta shirkadda magaalada Florence. sanadkii 1960 Aldo waxa uu soo bandhigay fikrad aan shirkadda hore looga hirgelin oo markaas ku cusbay dunida labiska iyo xaragada, waana fikrad uu fulinteeda aabihii ka joojiyay markii uu noolaa. waa kabo maas oo lagu magacaabo Loafers. fikradda kabahan ayaa ahayd mid ka duwan kabihii suuqa haystay oo ahaa kuwa leh cirib dheer. Loafers waxay ahaayeen kaba siman oo leh cirib dhulka u dhow. kabahani waxay shirkadda u soo xareeyeen adduun lacageed oo u dhigma kan ka soo xarooda dhammaan kabaha kale ee shirkaddu soo saarto, waxayna noqdeen kabaha ugu iibka badan suuqyada Mareykanka iyo Yurub. iibka iyo socodka kabaha waxaa qayb weyn ka qaatay in ay noqdeen kabo ay ragga iyo dumarka labaduba ku labistaan. sanadihii xigay Gucci waxay sii waday qorshihii isballaarinta ahaa, waxayna qaybo kala duwan ka furtay dalalka adduunka. sidoo kale dhinaca wax soo saarka ayay horumar ka samaysay oo waxay soo saartay badeecooyin cusub oo ay ka mid yihiin dharka, saacadaha gacanta iyo cadarrada, waxaana meel walba gaadhay baraanka ama magaca shirkadda. taariikhdu way soo celisay 2 sano kadib markii la soo saaray cadarrada shirkadda sanadkii 1974 waa xanuunka kansarka u geeriyooday Vasco oo aan ka tegin wax carruur ah. qoyskiisa waxaa shirkadda lagu soo daray Maria oo aan u muuqan mid xamaasad ama xiise u haysa ganacsiga. ugu dambayn Aldo iyo Rodolfo waxay isla garteen in loo celiyo qaybteeda, shirkadduna ay noqoto mid labadooda ka dhaxaysa. nin walbana waxa uu leeyahay 50% ka mid ah shirkadda. Aldo markii uu weynaaday wuxuu qaaday wadadii aabihii, wuxuuna shirkadda ku soo daray 3 wiil oo u dhalay, waa Paolo, Roberto iyo Sergio, isagoo ka dhaxaysiiyay sheer isku noqonaya 10%, halka Rodolfo uu iska diiday inuu sheer ka siiyo wiilkiisa Maurizio. kadib markii lagu soo daray dhiig cusub oo fresh ah oo ka dhigan wiilasha u dhalay Aldo, shirkaddu waxay xaqiijisay faa'iido ka badan 25%.
laakiin hal sano kadib Paulo iyo Giorgio waxay khiyaano ka bilaabeen shirkadda dhexdeeda. Giorgio wuxuu furtay shirkad cusub oo wadata magaca Gucci, halka Paulo uu furtay shirkad cusub oo wadata magac ka duwan kii qoyska. halkaasna waxaa ka bilowday furfurka iyo burburka qoyska Gucci, waxaana luntay midnimadii uu kula dardaarmay Gucci. muddo kooban kadib waxaa geeriyooday Rodolfo, waxaana dhaxalkiisa lagu wareejiyay wiilkiisa Maurizio oo haatan noqday shakhsiga iskala qaybta ama saamiyada ugu badan ee shirkadda. saamiga Maurizio waa 50%, halka saamiga adeerkiis Aldo uu yahay 40%. saddex wiil oo dhalay Aldo saamigoodu waxa uu isku noqonayaa 10%. Maurizio wuxuu go'aansaday inuu shirkadda ka saaro adeerkiis, waxaa qofka ugu khibradda badan qoyska, isla markaana lahaa saamiga labaad ee ugu badan shirkadda. wuxuuna isku dayay inuu la wareego gebi ahaanba shirkadda, uuna bannaanka uga saaro adeerkiisii carruurta uu dhalayba. cilladda ka hortaagan inuu fuliyo go'aankiisa ayaa ahayd isagoo aan haysan lacag si uu ugu celiyo adeerkiisa iyo wiilashiisa qaybta ay ku lahaayeen shirkadda. bangiyada ayuu ka waayey maalgelin leeg sheerka adeerkiisa iyo wiilasha uu dhalay. ugu dambayn waxa uu helay shirkad lagu magacaabo Investop oo diyaar u ah inay gadato saamiga adeerkiisa iyo wiilasha uu dhalay. Maurizio waxa uu suurto gashay inuu shirkadda ka sifeeyo qoyskiisa una adeerkiisu u celiyo qaybtiisa. 2 sano ayayna ku qaadatay inuu noqdo mulkiilaha shirkadda. shirkadda Gucci markii uu la wareegay lahaanshaheeda ninka lagu magacaabo Maurizio waxa uu bilowmatay taariikh madow. hoos u dhac weyn ayaana ku yimid sumcadda shirkadda, waxayna gashay khasaare ku dhow $30 milyan. markii la soo gaaray 1993 shirkadda Investop waxay aqbashay inay shirkadda badbaadiso ayna geliso lacag cusub, laakiin shuruudeeda ayaa ahayd in Maurizio uu wareejiyo maamulka shirkadda loona dhiibo qof cusub. Maurizio shuruudda shirkadda uu iska diiday markii hore, laakiin ugu dambeyn waxa uu go'aansaday inuu si dhuumasho uga baxo shirkadda kadib markii deymo badan lagu yeeshay. 2 sano ayaana la waayay muuqiisa, ma jirin cid garan karta halka uu aaday ilaa meydkiisa laga helay xafiis ku yaala magaalada Milano. ciidamada dambaalisu sida ay sheegeen dilka Maurizio waxaa ka dambeysay xaaskiisii hore oo soo ijaaratay dilaa qarsoon si uu nolosha u dhaafiyo Maurizio. dhacdadaas kadib shirkadda Gucci waxay iskula wareegtay shirkadda Investop, waxaana maamulkeeda gacanta ku hayay maareeye Tom Ford. sidaas ayayna kaga badbaaday inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha xidhma ee ku qoran bogagga taariikhda. Tom Ford wuxuu gaarsiiyay shirkadda Gucci in ay xaqiijiso sanadaha qaarkood faa'iido ka badan $1 bilyan. waqti xaadirkan shirkadda Gucci waxaa lagu qiimeeyaa inay u dhiganto $17 bilyan. tanina waxay ahayd sheekada shirkad uu aasaasay nin aan waxba baran oo ka soo jeeda qoys danyar ah, noloshiisuna ay ku beegnayd xilliyo ay dhacayeen dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. nin uu adkaystay dhibaatooyin badan kana gudbay caqabado kala duwan si uu aasaaso mid ka mid ah shirkadaha ugu magaca weyn adduunyada marka laga hadlayo dharka, kabaha iyo waxyaabaha kale ee lagu labisto. shirkad ay macaamiil u yihiin boqorro, madax, hantiilayaal iyo dad badan oo caan ah. waxaynu ka baran karnaa sheekadan in dadaalku yahay wadada guusha, in aragtidu ay ka muhiimsan tahay hantida, ficilkuna uu ka qiimo badan yahay fikradda. inta aynu ku kulmi doono sheeko kale oo tan la mid ah, nabadiino.